maanta u fadhina waa shir aad iyo aad muhiim ugu ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed waana kalfadhigii ugu horeeyay ee si wada jira loogu furo labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa shir u furayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ah astaan qaran mideeyaha xiriiriyaha labada laamaha dawladda iyo ilaaliyaha dastuurka qaranka shirkani waa mid aan ka sugayno madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu ummadda Soomaaliyeed ugu soo bandhigo hadafka iyo aragtida fog ee mustaqbalka dalku higsanayo mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin marka hore inta aan ku dhaafo ujeeddada iyo ahmiyadda uu shirkani u leeyahay ummadda waxaan rabaa inaan dhowr eray ka iraahdo midnimada iyo heshiisiinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed sida guddiga qabanqaabada kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ay soo jeediyeen mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin Soomaalidu waxay tidhaahdaa bahal higlo afqudhmuun ku wada joogi weyday kalgacaylna ku kala tegi weyday anigoo og in dad badan oo meeshan fadhiya ayna garanaynin ereyga bahal higlo inta aanan u gudbin ujeeddada aan ka leeyahay mahmaada aan idiin sheego bahal higlo waa xawayaan cagaar daaq ah oo koox u socda yeydana u eg laakiin aad uga yar mahmaadani waxaan ula jeedaa dadweynaha Soomaaliyeed marna cadow isuma aha waa dad walaala oo isjecel waa dad sina aan u kala haraynin sidoo kale waxaan ogsoonahay inuusan qabiilku xumayn dhibna lahayn sababtoo ah quraanka kariimka ayaa Ilaahay inoogu sheegay in qabiilku yahay wax la isku garto hase ahaatee waxaan dhaliilayaa waa qabiilka siyaasadaysan ee qof kursi siyaasadeed doonaya si xun ugu adeegto sidaa daraaddeed waxaan leeyahay Soomaali qabiil siyaasadaysan ku heshiin weyde Soomaalinimadana ku kala tegi weyde mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin si loo gaaro heshiis dhaba iyo midnimo buuxda waxaa lagama maarmaana in la helo xasillooni siyaasadeed oo inoo horseeda dimuqraadiyadda taasoo ku dhisan wada hadal isla meel dhigid la wada guddoonsado arrimaha nagu horgudban ay ka mid yihiin kow siyaasadda dawladda federaalka ee ku aadan habka wada hadallada Somaliland arrintani waxay dalbaysaa in dadka heshiiska ka qaybgalaya waa inay ku sifoobaan saddex arrimood oo kala ah inaysan xambaarsanayn xamaasad iyo caadifad qabiil siyaasadaysan ujeeddadooduna tahay midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo keliya inaysan ahayn dad wata ama fushanaya dana gaara oo siyaasadeed ama dhaqaale inay yihiin dad wadaniyiina oo dhab ka tahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed dalka intiisa kale naftiisa waxaa ka jirta dhibaatooyin ka dhashay dagaalkii ahliga ahaa oo dadku meelo badan la isku khilaafsan yahay sida oo kale waxaan soo jeedinayaa guud ahaan dalka in laga sameeyo nabad loo adeegsanayo culimaadiinka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka iyo fanaaniinta in dalka lagu abaabulo wada hadal dhaba oo ay ka sameeyaan deegaan kasta si loo heshiisiyo dadka laba
in laga dhabeeyo geedi socodka arrimaha dubi eegista dastuurka oo ah gundhiga dimuqraadiyadda dalka dib u heshiisiinta iyo midnimada Soomaaliyeed 3 cadaaladda oo ugu horeyso dhisidda iyo hirgelinta golaha adeega garsoorka si loo helo garsoor hufan leena karti buuxda una bixiyo adeeg xaqsoor ah oo aan eexi ku jirin 4 qabsoomidda doorasho xor ah iyo xalaal ah kuna dhisan hannaan sharci cad ah oo geed fadhi u yihiin labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaybsiga khayraadka iyo dakhliga dalka si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka soo jeedin iyo adkeynta hannaanka wada shaqayn ee hay'adaha dawladeed ee heer dawlad dhexe iyo heer dawlad goboleed iyadoo la dardargelinayo samaynta shuruucda labdhabarka u ah wada falgelidda heerarkaas kala duwan sida sharciyadu qeexayaan wada shaqaynta iyo iskaashiga dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo wixii la mid ah 7 ilaalinta madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya taasoo haddii aynaan maanta si dhab ah oo wadajira ugu istaagin ay taariikhdu mugdi inoo diiwaan gelinayso ugu dambayn Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaa tol loo yahay qof qalloocan qabashadii qof quman quweyntiis iyo qof qooman wax u qabadkiis oo macnaha halkaa ku jira waxa mahay haddee tol baynu nahay tolku ma aha qoys ee tolku waxa weeye dadka Soomaaliyeed oo dhan baa tola maxaynu u baahannahay markaas mahmahdani waxay inoo sheegaysaa inaynu qofkii inaga mid ah ee samaynaya ama ku kacaya wax xun oo dadka iyo dalka wax yeeli kara inaan ka hor joogsanno oo aan u diidno oo aan u sheegno wixii fiican ee uu samaynayo wixii fiican inuu sameeyo qofkii inaga mid ah ee wax hagaagsan wada waxaan oo dadka iyo dalka waxtar u ah waa inaynu ku dhiibnaa ku taageernaa oon gacan ku siinaa qofkii naga mid ah ee dhibaataysan waa inaynu gacan siinaa wax kala qabannaa dhibaatada haysata gabagabadii waxaan idinka mahad celinayaa ka soo qaybgalka munaasabadan furitaanka fadhiga 3aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegeysta